Anta dowladda Turkigu waxay qaaday mid ka mid ah tillaabooyinkii ugu cuslaa oo nidaamka Israa'iil wajahay 4 sano ee ugu dambeysay kadib markii si rasmi ah wasiirka amuraha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan uu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay joojisay calaaqaadkii ay la lahayd dhinaca ganacsiga iyo waliba dhaqaalaha ee Israa'iil sidoo kalena wixii maanta ka dambeeyay la mamnuucay isticmaalitaanka diyaaradaha Israa'iil ee gudaha iyo hawada wadanka Turkiga. Arrintani waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo xaaladda hadda ay aad uga sii darayso gobolka Bariga Dhexe. Wasiirka oo la hadlay wariyaasha sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu waxa uu leeyahay Netanyahu waxa uu raadinayaa inuu dhibaatooyin ka unka gobolka Bariga Dhexe. Waxa uu diidan yahay jiritaanka dawlad ballaaran oo ka dhalata Syria. waxa uu weeraray meelo kala duwan oo kamid ah daanta galbeed iyo Gaza. Ujeedaduna waxay tahay koortaga dawlad loo dhan yahay oo gobolka Bariga Dhexe ka dhalata oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin. caasimadeedana ay noqoto Qudusta Bari. waxa uu sidoo kale hadalkiisa ku daray isagoo waliba dhinacyo kala duwan ka eegaya in ay doonayaan ciidamada Israa'iiliyiintu inay faragelin ku hayaan gudaha amniga wadanka la yiraahdo Lebanon oo ay ugu dambeysay koonfurta ay ka geysanayaan dhibaatooyin aad u xoogan weerarka ay ku qaadayaan qaybo kamid ah dalka Yemen iyo waliba diyaarinta weerar ballaaran oo ka dhalay buu yiri dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. arrimahaasi marka la isku geeyo waxa muuqanaya in dalka Turkiga uusan haba yaraatee wax calaaqaad ah uusan la yeelan karin nidaamkaasi sida xoogan u shaqeynaya isla markaana doonaya in dhibaatooyin uu ka sii dhaliyo gobolka Bariga Dhexe sida doodiisa uu u dhigay. hadalkani waxa uu ku soo aadayaa xilli xalay Mareykanka iyo sidoo kale dalka Turkigu ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira nabadgelyada iyo xal u helidda dagaalada ka taagan gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan gaajaysiinta iyo rasaas ku dilidda shacabka magaalada Gaza inay tahay mid aan loo dul qaadan karin sida uu dooda u dhigay. hasaatee maanta markii uu hadlayay waxa uu Hakan Fidan waraysigiisa iyo waliba shirka jaraa'id ka dhanka Israa'iil uu ku yiri dhammaan dhibaatooyinka ay sameynayaan ciidamada Israa'iiliyiinta waxa muuqanaya inay garab ku siinayso dowladda Mareykanka sidaas daraadeedna dowladda Turkigu waxa ay dhoojin doontaa tillaabooyinka ka dhanka ah nidaamkaasi isla markaana ay sii xoojin doonto buu yiri in ay ka hortagto dacadiyada iyo dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha ka dhanka ah ee loo geysanayo shacabka Falastiiniyiinta sida uu doodiisa u dhigay. hadalkani ayaa noqonaya kii ugu xooganaa ee dalka Turkiga ka soo baxay waxana uu ku soo aadayaa xalay iyadoo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku faanay in hubka warshadaha dalkiisu ay soo saaraan ay hadda ku filan yihiin dawlado fara badan. waxa muuqanaya dalkaasi inuu isku diyaarinayo weerar ka dhala mustaqbalka nidaamka Israa'iil taasoo hadda dunida walwal weyn ku haysa. wadamo Yurub ayaa lagu soo waramayaa maanta inay campaareeyeen nidaamka Israa'iil oo weerar ku qaaday qaybo kamid ah gudaha magaalada Gaza isla markaana halkaas uu aqoonsaday goob halis ah oo dagaal uu ka socdo sida ciidamada Israa'iil iyo ra'iisul wasaare Netanyahu labadaba ay ku dhawaaqeen. dad kor u dhaafaya ilaa 60 qof ayaa warar ku sheegayaan saaka duqeymihii iyo weeraradii dhacay inay ku geeriyoodeen dad sidoo kale kor u dhaafaya 200 oo ruuxna ay ku dhaawacmeen. wararku waxay inta ku darayaan in goobaha caafimaadka xaaladoodu ay aad u liidato isla markaana gargaarka caafimaad ee la heli karaya uu yahay mid kooban goobaha gaarka ah ee shaqeynayana ay suuragal tahay inay la kulmaan duqeymo iyo weerar ka iman kara dhinaca Israa'iil. Netanyahu waxa uu ku doodayaa in xaaladda hadda ka taagan gobolkaasi gaar ahaan magaalada Gaza uu sii wadi doono ilaa inta uu soo abeeyo inta ay hubsidaan buu yiri kooxaha gobonnimo u dirarka Falastiiniyiinta. isla wararka haddii aan fiiriyo wadamada Yurub sida weyn u cambaareeyay tallaabooyinka Israa'iil ay qaaday waxa kamid ah dalalka Iceland, Ireland, Luxembourg, Norway, Slovenia iyo Spain waxaana ay si wada jir u cambaareeyeen weerarka cusub ee Israa'iil ay ku qaaday gudaha magaalada Gaza iyo ku dhawaaqista inay doonayso in si rasmi ah u joogto gudaha magaaladaasi ilaa inta yoolka iyo waliba hadafyada ay leedahay laga gungaarayo.
bayaan ay si wada jira u soo saareen wasiirada amuraha dibadda ee dalalkaasi ayaa lagu yiri tallaabada Israa'iil inay tahay mid dhibaato weyn ku abaaliyay dadaalada nabadeed isla markaana kor u qaadaysa ama ka hor imaanaysa baaliyay shuruucda caalamiga ah iyo go'aamada qaramada midoobay sida ay doodooda u dhigaan. dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa Jimcihii sheegay in uu bilaabay howlgalka hordhaca oo ah wejiga koowaad iyo weerar cusub oo lagu qaaday magaalada go'doonsan ee Gaza sida uu ku waramay afhayeenka militariga ee kooxdaasi waa nidaamka Israa'iil waxana uu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ilaa inta xogaga wax iska caabintu ay hubka dhigayaan isla markaana la soo deynayo dadka gacanta uga jira kooxaha Falastiiniyiinta. sidoo kale Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in magaalada Gaza laga saaray xabad joojin kasta oo ku meel gaar ah iyadoo lagu tilmaamay aag dagaal oo qatar badan taas oo macnaheedu yahay in dhammaan dadka ku sugan magaaladaasi ay wajahi karaan xaalad amni oo sii kordhaysa marka lagu aqriyo hadalkan qaanuunka caalamiga ah iyo xeerarka dagaalka ee adduunka. Israa'iil waxay Gaza waragtaa xaruntii ugu dambeysay ee dhaqdhaqaaqa wax iska caabintu ay ku sugan yihiin waxaana howlgalkan ballaaran la sheegay in looga dan leeyahay in meesha laga saaro jiritaanka kooxdaasi. hase haatee warar hordhaca oo soo baxaya ayaa qeexaya in Israa'iil ay doonayaan in guud ahaanba gacanta ay ku hayaan magaaladaasi. wararka ka imaanaya dhinaca wadanka Yemen waxa ay tilmaamayaan in maanta la xaqiijiyo weerarkii ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen qaybo ka mid ah gudaha wadanka Yemen maalintii shalay ahayd lagu beegsaday xubno sarsare oo ka tirsan dowladda Xuutiga. wararka ka imaanaya magaalada Sanca sida uu maanta goordhow baahiyay Jimcahan telefishinka Sky News waxa wararku ay xaqiijinayaan in duqeyntii shalay lagu dilay ra'iisul wasaaraha Xuutiga oo lagu magacaabo Ahmed Galib al-Rahwi oo duqeyn cirka ah ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ku geeriyooday. duqeynta ayaa ka dhacday baaliyay fiidnimadii Khamiista iyadoo la sheegay in gantaal culus lagu beegsaday dhismo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsanaa kooxda ila wareedyo maxalli ah iyo warbaahinta Yemen ayaa sheegaya in sidoo kale Qulaami ay suuragal tahay weerarkaasi inuu ku baxay isaga iyo dhowr ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah sida wararku ay tilmaamayaan. waxaa dhismaha Rahwi wali si rasmi ah loo xaqiijin baaliyay kooxda Xuutiga oo aan wax war ka soo saarin weerarkii shalay halkaasi ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay intaba. markii weerarka ay qaadayeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil waxaa halkaasi ka soconaya shir aad muhiim ah oo ku saabsanaa arrimaha nabadgelyada iyo waliba jihaynta siyaasadda ee ururka iyadoo halkaasi uu khudbad ka jeedinaya Cabdimalik Badri al-Xuuti oo ah hogaamiyaha sare ee kooxdaasi isla markaana ay u yaqaanaan Sayid. waxaa hadda muuqanaya in Israa'iil haddii warkan uu suuragal noqdo ay muujinaysaa in ay ilaha sirdoonka ee Yemen ku leeyihiin kooxda Mossad ay noqonayaan kuwa halis badan isla markaana jilaaban kara war ay adkeyd markii ugu horeysay kooxda Xuutiga in laga helo. saate waxay su'aali ka taagan tahay ilaa iyo hadda goorta ay ka jawaabi doonaan warkan kooxda Xuutiga iyo jiritaankiisaba. dhowr goor hore Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay dileen xubno sarsare oo ka mid yahay taliyaha ugu sareeya kooxda Xuutiga hase haatee markii dambe wararkaasi waxay noqdeen kuwa aan sal iyo raad lahayn. hase haatee hadda ma jiraan war ka soo baxay Xuutiga iyadoo Israa'iil warbaahinteeduna ay sidan tabinayaan iyo qaar ka mid ah kuwa Carabta.